halkan aanu maanta joogno ee kormeerkaanu ku nimi waxa weeyaan riigga Xaaji Diiriye ee degmada Gaashaamo gobolka Jarar waxaan jeclahay inaan dhowr qodob idhaahdo mid waxaan leeyahay xukuumadda midna waxaan leeyahay shacbi weynaha Gaashaamo midna waxaan leeyahay dadka soo guurtada ee halkan ku sugan mid waxaan leeyahay shacbi weynaha Gaashaamo waxaan ku bogaadinayaa oo ugu hambalyeeynaya sida milgaha sharafta iyo maamuuska leh ay u soo dhaweeyeen dadka walaalahooda ee Soomaaliyeed ee ku soo guuray xoolaha wata waxaan leeyahay soo dhaweeya dadkaas sida u soo dhaweysan u soo dhaweeya si milga iyo sharaf leh hadii Ilaahay meeshiini ama baradiini baad dhigay umada ku soo dhaweeya xilligan adagoo kale waa xilliyada la isku itixaamo sida daraadeed waan uga mahad celinayaa shacbi weynaha reer Gaashaamo iyo maamulka degmada Gaashaamo soo dhaweynta ay u sameeyeen dadka soo guurtada waa qodobka labaad waxaan oran lahaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida xukuumadda waxaan leeyahay waxa weeyaan xukuumaddu waa inay degdeg ugu soo gurmato dadka tirada badan halka waxa jooga ilaa iyo siday noo sheegeen dadka maaragtay deegaanku ilaa 7 degmo oo kala duwan oo meelo kala duwan ka soo guuray sida aad arkayseen maaragtay dadweynihii hadlayay ee meelaha kala duwan ama degmooyinka kala duwan ka yimi culays degmada Gaashaamo oo 100 iyo intaas oo qabale ah oo iyadu culayskeedii markii hore la liidatay hadii haddana intaas oo degmo oo kale ay yimaadeen oo digitimi oo gunagada timi oo birqootimi oo awaara timi de culayska inta dalkii oo dhan Gaashaamo iskugu yimi sida daraadeed waa in dhaha dawladda dhan inuu qabto Gaashaamo weeyaan waa in loo keeno raashin ku filan waa in loo keeno biyo ku filan waa in riigaga iska daboolan cilada yar ee fudud ay ka jirto dawladdu ay daboolka ka qaado waqti la geliyo lacag la geliyo dadka loo soo gurmado waxaan joognaa riigga Xaaji Diiriye sida de waraysiga idinka maartay bulshada ka muuqata in waxa jirta de riigga culays badan ba saaran sidii riiggii darro kale sidoo kale culayska riigga in waxa jira riigga xiran laba riigo kala xiran in labada riigin si degdeg ah loo furo waxa kale jirta dadkii halkan joogay ama xoolayn soo guurtadaha ama dadkii deegaanka ahaa caqabado badan baa wajahay dadkii xoolihii laga iibsan waayo waxba ma hayaan baahidii biyaha waxa kaga daran baahidoodii nafsiga ahayd ayaa baahidii biyaha ka daran waxaan u sheegaynaa dawladda waxaan u sheegaynaa qurba joogta waxaan u sheegaynaa tujaarta cid kasta oo khusaysan dadka maaragtay loo soo gurmado xaaladdu waxay maraysaa ninkii sakaraaday yiri nuur iyo naaleeyaba loo joogay naftu yaanay ka bixin war dadka naftu yaanay ka bixin dadka loo soo gurmado waan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi